muddo 10 sano Kuuriyada Koonfureed waxay ilaalin jiray Mareykanka laakiin hadda wax walba way isbedelayaan. Donald Trump ayaa bilaabay inuu su'aal geliyo baahida loo qabo dawlad-taasiyada militari ee joogtada ah ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed isagoo isla markaana si cad u amaanay Kim Jong Un hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Laakiin sababtu maxay tahay? Sababtu waxa weeye intii uu socday dagaalka Iran, Trump aad buu uga cadhooday in xulafada Mareykanka oo ay Kuuriyada Koonfureed ku jirto aanay u gurman Mareykanka. Waxa uu ku dooday in dalalku ay filayaan in Mareykanku ilaaliyo ama uu u gurmado marka ay dhibaato ku jiraan, balse aanay garab istaagin Mareykanka markii uu isagoo u baahday taageeradooda. Arrintani waxay sii horgelisay xaalad adag, inkastoo Kuuriyada Waqooyi dhab ahaantii ay isku diyaarinaysay mustaqbal bilaa Mareykan ah oo aan garabkeeda joogin. 10 sano ee la soo dhaafay wax bilaayin dollar ku bixiyeen ciidankooda, iyagoo dhisaya hub casri ah isla markaana ballaadhinaya warshadahooda difaaca. Natiijadan waxay noqotay in Kuuriyada Koonfureed ay kaalinta shanaad ka soo gasho qiimeynta awoodda ciidan ee caalamka ee Global Firepower ee 2026. Sidaas darteed iyadoo Washington ay dib uga fiirsanayso ballanqaadyadeeda, Seoul waxay si aamusnaan leh u dhisanaysaa ciidan ay mustaqbalka u baahan karto haddii aanu Mareykanku garabkeeda joogin. Laakiin dhinaca kale ee xadka, Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintan si dhow la socota. haddii Pyongyang ay mar una aragto in gaashaanka iyo ilaalinta Mareykanku ay daciifayaan, waxay taasi bedeli kartaa sida Kim Jong Un uu qiimeynayo talaabada xigta ee uu qaadi doono.